السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan baahanahay inaan idinka sheekeeyo qiso yar oo ila daawataan. qisadan waxay ku saabsan tahay qisadan bisad iyagoo dariiq maraya iyadii walaasheed gaari maray. tii gaarigu maray maaha tii kale saad u jeedaan, waxay fiirinaysaa in walaasheed dhimatay iyo in kale. way ka quusan la'dahay ilaa ay sanka u saartay, ay eegtay in naftii ku jirtay iyo in kale. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u qadaray inay dhimato. qoftaas ayaa martay. waa qiso la yaab leh in bani aadmigii isu naxariisan waayaan, ummaddiina bisadiina isu naxariistaan iyo xayawaankii. kadib intaa qisadu kuma dhammaan. bisadii nooleed iyo bisadii dhimatay labadiiba waa la isla qaaday, iyadoo bisadda saa u jeedaanba ay suuxday, kadibna ay nafbaxday iyadoo u dhimatay naxdintay ka naxday walaasheed. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana u qadaray inay hal maalin wada dhintaan. dhakhtarkaanna wuxuu caddeeyey inay u dhimatay bisadii kale, yacnii naxdin ay ka naxday ama ay ka murugootay dhimashada bisadii kale ee la socotay. marka allah subxaanahu wa tacaala dartiis isugu naxariista walaalayaal, oo haylaawanina naxariista alle meel kastaad joogtaanba. maxaa yeelay innagu bisadaha ama xayawaanaadka kama liidanno.